mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay inaan bil Ramadaan oo qoraxda kulushahay aan shaqadan noo hirgasho sidoo kale waxaan mahadcelinayaa bulshada qaybaheeda kala duwan sida ururka dhalinyarada maamulka caasimadda xaafadda Dayax baahda kale ee qaybaha kala duwan ee bulshada meesha timid mahadcelin ka bacdi waxaan rabaa inaan wax yar muujiyo gadaal u laabto shaqadan sida ay ku bilaabatay iyo sida hadda ay ku socoto dad badan ayaa tuhun iyo shaki qabo isla meeshaan hawsha socota ama kambaniga wada hay'ada wada ma dawladda wada maamulka degmada wada warar badan ay maaragtay guuxdan ka jiraan waxaan rabaa meesha inaan iftiimiyo anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada caasimadda garbahayga inay taagan yihiin xubnihii kale ayaan waxaan rabaa inaan muujino sida ay ku timid shaqadan iyo cidda hindistay iyo cidda hadda hawsha wada hindisaada iyo fikirka iyo keenida iyo urinta arinta waxa iska lahaay ururka dhalinyarada kadib waxay ula tageen markay arkeen wadooyinku sida ay noqdeen markay arkeen sida laamiga dhexdiisa uu yahay markay arkeen maamulkii degmada oo raba shaqada inay qabtaan inay iska jiifsadeen oo aysan talaabo qaadaynin waxaan go'aansanay inaan si toos ah xaafadaha oo la falgalno una tagno alxamdulillah wadooyinka markaa qiimeeyna wadooyinka ugu daran waxay noqdeen xaafadda Dayax gudoomiyaheeda Maxamed Saciid boqolkiiba boqol waa mahadcelinaa isaga iyo qaybihiisa kale iyo dhalinyarada iyo dadka kale oo degan xaafadaas si wanaagsan ay noo ajiibeen barnaamijkii waa isla qaadanay waxay noqotay inay ka soo baxdo in xaafadaas ay noqoto wado loo saaro laamigan laga bilaabo ilaa meesha ugu dambeeyda hal wadana kamid ma ahane dhammaan wadooyinka xaafadda Dayax oo dhan ayay go'aankaas qaateen waxa ka yimid dad dhalinyaro ah oo maskax furan oo aan ka xusi kar Cabdikaafi Xaashi Faarax iyo Cabdullaahi Shariif Yaray kamid yihiin iyo dad kale oo maaragtay ganacsato Cabdulle Daahir iyo Bashiir Sagana ragaas oo ay kamid yihiin yaa fikirkii nala qaatay markay nala qaateenna waxay noqotay in maamulka xaafadda iyo anakoo ah dhalinyarada inaan isla fariisano ay timaado in la yiraahdo aan guddi meesha laga qabto annaku hal xaafada gudoomiye uma nihin dhalinyarada uma nihin dhammaan xaafadaha unna xaafadii aan talada u keenay ra'yigu keeno nala qaatan sidaas aan la shaqeynaynaa Maxamed Saciid oo nala qaatay isaga iyo qaybihiisa kala duwan garbihiisa guddi ay u sameysteen ayaga hadda shaqadan wada gacantay ku hayaan guddi ayagu ka kooban oo xaafadaas ka kooban oo qaybaha kala duwan ee maamulka xaafadda ganacsatadooda gaadiidleeyooda dhammaan ay isugu jiraan intaas bay ku jiraan go'aanka ay guddiga ka qabsadeen waxay la xiriireen baabuurta birta culus ragga haysta oo uu kamid yahay Cabdi Muuse oo aan meesha rabo inaan uga mahad celiyo oo ballan qaaday xaafad kasta oo kamid ah xaafadaha magaalada ku taala inuu si bilaash oo ula shaqeyn doono u dhisi doono oo way cid ku dhiirigeliyo la shaqeeyo oo way xataa uu isku dayo asagoo dhowr mar inuu kaligiis dhiso maamulka xaafadda iyo dadka kale degan oo aan dadka aan xusay kamid yihiin way la qaateen go'aankiin hore loo galay guddiga u saarteen akoomay sameysteen shaqadii ugu horeeyay ayaga waxay ka bilaabeen dadka xaafadda wadada fiyaalaha saaran shaqadii qayb u kala qaadeen phase 1 phase 2 phase 3 u kala qaadeen wadooyinkana saas oo kale u kala qaadeen si fiican ay shaqada u socotaa waa u jeedaan maanta meesha ay ka bilaabeen cid walba ay marqaad ma doonto u tahay annakuna ka dhalinyaro ahaan waxaan leenahay ma nihin inaan leenahay ma ahan maamulka degmada afkooda ku hadlaynaa laakiin maamulka degmada hadii aysan shaqaynaynin oo ayagu aysan shaqadii qabanaynin ma ahan annaku inaan ta guriga ugu tagnaa ilmaha raayay kala shaqeynaya mas'uuliyadda meesha aska lahaa kaliya annaku waxaan leenahay inaan dadka curino abaabulno taladan u sheegno waxaan rabaa sidoo kale xaafadaha kale ee dhiman xaafadda hodan inay nala qaadatay ayaga abaabulkoodii wadaan waxa cadda sidoo kale horseedii waa barna sidoo kale ay wadaan xaafad walbana saas aan ugu tagi doonaa insha Allah hadii la yiraahdo gaadiidleyda magaalada Dhuusamareebad qaasatan xaafadda Dayax iska wuxuu qabtay shaqadan ku qabanayaan hatta shidaal ma loogu shubay ayaga shaqadooda wata Cabdi Muuse oo wadada cagafta sinaa sidoo kale uu shaqeynaa waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo Macal Cabdulqaadir oo cagaftiisa wata asna sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo una dhiirigeliyo una baaqo reer Dhuusamareebad wada kasta inay sida dadkii u horeeyay u sheegaan ay xaafad ugu midoobaan mid markay dhamaan mid kale u soo jeestaan dadka u dhasho Dhuusamareeb ama ha ahaadeen siyaasiyiin ama ha ahaadeen ganacsato ama ha ahaadeen dad kale inay ka qayb qaataan dhismahaas wadooyinka socda oo aysan cidna ku hadlayn waana mahadsantihiin sidaan hore ku sheegay waxaan ugu dhiirigeliyay anagu wax yaraan magacaabanahay ururka ahaan dhalinyarada markii aan aragnay wadadu si ay tahay wadooyinku yihiin roobkii markuu ay wadooyinkii xirmeen cid u dhaqaaqay aan la arkinin fiyaalihii magaalada saan yahay ayaa anagu fikrad anaka naga timid ku timid fikradaano xaafad kasta iyo gudoomiye kasta saas oo la fariisanay xaafadooda waa kala hadalnay waan u sheegnay waxyaabahan kala hadalnay kaliya biyaha iyo wadooyinka maahan leerarka magaalada kamid ahay nadaafada kamid
intaba waan kala hadalnay ilaa haddana wax jawaaba kama hayno waa iska warsanaynaa aan ka haynaa kaliya aan wax kale ka dambeeyay